maxkamadda gobolka Maroodijeex ee Somaliland ayaa xukun ku riday milkiilaha Astaan TV Cabdi Manaan iyadoo xukunkaasi ay ururka suxufiyiinta Somaliland ee Solja ay cambaareysay. Xamse Dabaare ayaa warkani Somaliland inooga soo diray. maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa saaka xukun 5 sano ah iyo 2 milyan oo shilinka Somaliland ku ganaaxday mulkiilaha Astaan Cable TV Cabdi Manaan Yuusuf Cali waxaana maxkamaddu ay xayiraad saartay telefishinka Astaan Cable TV xukunka kadib waxa warfideenka la hadlay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Somaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto waxaana uu sheegay inay qaadaceen xukunka lagu riday mulkiilaha Astaan Cable TV gobolka Maroodijeex urur ahaan runtii waxay nagu noqotay mid fajacis ah ama runtii mid aan la filanaynin waxaan saa u leeyahay runtii muddadaasi dacwadaasi socotay waxa aan soo bandhignay wax kasta oo xaqiiqo ah oo ku saleysnaa in aanu qabin Cabdi Manaan iyo telefishinkaas eedaha loo soo jeedinayo muddo 6 sano ah baan imika maxkamadaasi joogtaa u joognay wali dacwad lagu dhawaaqo nooceeda tii koowaad bay ahayd maanta qaabka loogu dhawaaqay oo runtii ah Cabdi Manaan waxa lagu eedeynayay 3 eedood oo ay ta koowaad ahayd in uu hawlo basaasnimo ah ee Somaliland ka waday talabaadna waxa ahayd in uu sifo sharci darro ah telefishinkiisu dalka kaga shaqeynayay iyo ta saddexaad ahayd in uu sifo sharci darro ah dalka ku soo galay waxay ahayd sida caadada ah qodobadaasi in garsooraha dacwadda gacanta ku hayay uu sababeeyo marka xukunka maanta uu soo saaray mid walba waxyaabaha uu kaga helay ama waxyaabaha uu u cuskaday inay qodobadaasi uu ku xukumay waxa uu ku xukumay 5 sano oo xariga waxa uu ku xukumay in telefishinka la xayiro sidoo kalena waxa uu ku xukumay 2 milyan oo shilin Somaliland oo ganaax ma kala cadda ama waxaan u aragnaa in muhimal weyn ku jiro maadaama oo qodobadaasi lagu eedeynayay 2 milyan oo shilin Somaliland ma garanayna sababta maanta maxkamaddu u cadeyn weyday saddexda qodob mid walba wax ka gaashay waayo maadaama basaasnimo ku eedeynaysa xukuumaddu waxaan ka filaynaa garsoorku inuu yiraahdo eedaasi basaasnimada ah waa lagu helay qodobka caynka iyo caynkaas aan kaga xukunay sidoo kale sharci darrada telefishinkaas ku shaqeynayay waanu ku helay sida ay saasaan ku xukunay sharci darrada socdaalka ee lagu eedeeyay waanu ku helay intaasaan kaga xukunay waxa maanta ka dhacday maxkamadda gobolka in uu garsoorihii kiiska gacanta ku hayay runtii si duuduuba xukunadaas u soo saaray isagoo aan kala cadeynin isagoo aan mid walba wuxuu kaga helay dambi aan u food saarin runtii maadaama ay taasi dhacdo waxaan u aragnaa ururahan arrin sharci darro ah arrin aan Cabdi Manaan mutaysan arrin telefishinkaasi runtii loogu talagalay sidii dad badan inta badan qabeenba in albaabada loogu laabo ganacsiga ninkaasi in ay ahayd maanta talaabada ay garsoorku qaadeen waxaan u filaynay maadaama dacwadaasi joognay muddadii ay socotayba in ay ahayd in la abaal mariyo hay'adaha ku shaqada leh arrimahaasi haday noqoto ruqsad la'aanta oo runtii aan u arno wasaaradda warfaafinta Somaliland iyo xafiiska xeer ilaalintu sifo qaldan ama sifo nidaam darrati ugu liidatay in ay u sameeyaan ama ugu tagrifadaan awoodda iyagoo baal maray xeerka saxaafadda Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa.